الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. waxaa maanta magaalada Gabil iyo caasimada gobolka Soomaaliya loogu ogeeyay salaada Ciidul Fidriga oo kumanaan kun oo kamid ah shacabka magaalada Gabil ay isku soo baxeen barxadaha waaweyn ee magaalada Gabil iyo caasimada gobolka waxaana tukashada salaadani bulshada magaalada Gabil kala soo qayb galay barsaabka gobolka Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye maayirka magaalada Gabil Maxamed Amiin Cumar Cabdi iyo taliyaha qaybta booliska gobolka iyo marti sharaf kale ugu waran waxa halkaas ka hadlay mas'uuliyiintaasi oo bulshada ugu hambeliyay culashada Ciidul Fidriga waxaana ay yiraahdeen maalmo khayr laynu joognaayo maalmihii aynu rabadaanta bilowna haddaad dib u xusuusataan abaar iyo odolulul iyo kulayl iyo kadeed baynu ku jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmadii inoo dambaysiiyo imikana doog iyo barwaaqad iyo qabowa meelaynu joogno waa arkaysaa dhagahay ay nooga dhigeen allahu akbar kabiira walxamdulillahi kasiira subxaan allahi bukratu waasiila waxa weeye fadligiisay ka mid tahay laba munaasabadood oo aad iyo aad u qiimo badan ayaa qaran ahaan inagu soo beegan mid waa qarannimadii jamhuuriyadda Soomaaliland 18 May oo maalmo ka harsan yihiin waa maalin taariikh leh waa maalin qaranka Soomaaliland iyo dadkiisa ku weyn saa ka warqabtaan xukuumaddu iyadoo niyadda ku haysa xanuunka COVID-19 iyo duruufaha ku gadaaman waxa la joojiyay xuskii la xusayay isu soo baxyadii la qabanayay sidaa daraadeed waxaynu u baahanahay haddana inaynaan dhayalsan qof kasta oo muwaadin halkuu joogo uu ku xuso waxa iyaduna foodaynugu soo hayso inuu u diyaar garoobanaa doorashadii isku sidkanayd waa doorashadii ugu horeysay ee guud ahaan qaranka Soomaaliland ka wada qabsoomasa minbar iyo galbeed waa doorashadii ugu horeysay ee ay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaran ahaan aynu inagu qabsanano hadday tahay maalkeeda iyo hadday tahay guud ahaan farsamadeedaba magaalada rabsha ka dhacday niman dhalinyaro ah baa rabshada sameeyay meherada la boobay dad baa la dhaawacay meelaha la dhagax la dhacay dad waayeela wax loo geystay kulli aanu shan bilood baa hadda joogay hore uma dhicin magaalada kulli inta gobolada arkay meesha ugu abni wanaagsan bay ahayd dadkii dhalinyarada ahaa qaar booliisku way hayaan qaar wajaale iyaga lagu qabtay qaar waa naga maqan yihiin gacan baan idinka rabnaa oo waxaan idinka rabnaa dee waxa taa war wiilkii waa kan waxa la sheegayaa maalintii magaalada ka baxaan oo qalax iyo buuraha iyo meelay tagaan dee habeenkii guriga ku soo hoydaan dee waalidka waxa qaranay adigu gacanta soo qabo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin shacbiga reer Gabiley dhammaan degmooyinkiisa 6 degmo shacbiga muslimiinta meel kasta ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak ilaahay sanadkiisa inagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo raxmad waxaan halkan uga faa'iideysanayaa maalintan ciidda ah doorashooyinka inagu soo fool leh oo inagu soo haya fooda dad baa tartamaya raggaa tartamaya ama dumarka tartamaya waxaan leeyahay horta ilaahay ha inooga dhigo kuwa soo baxa kuwii khayr leh waxaan odhan lahaa hala doorto war qofka wax inoo taraya waxaanaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay inoo soo saaro kuwii ummadda wax u qaban lahaa wayaan la xaji telefishinka qaranka Gabiley.